الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 61 ee min suurati albaqara. ilaahi wuxuu yihi subxaanah waid qultum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti xusuusta oo nicmadii ilaahay idiin galay bal xusuustaoo ka sheekeeya id waqtina ilaahay yacni nicmo wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti xusuusta qultum aad tiraahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira ku sabri mayno calaa طacaamin cunto korkeedii ku sabri mayno cuntadaasoo waaxidin keligeed ah ee fadcu lanaa muusow noo tuug oo noo bari rabbaka rabbigaa noo tuug oo noo bari yukhrij lanaa hanoo soo bixiye mimaa shay wax ka mid ah tumbitu ay soo dhalinayso al ardu dhulka min baqlihaa arlada begelkeed xaal uu yahay wa qithaa'ihaa arlada qajaarkeed xaal uu yahay maagaasi wa fuumihaa arlada toonteedii iyo burkeedii xaal uu yahay wa cadasihaa digirteed xaal uu yahay arlada waxay soo dhalinayso wa basalihaa arlada basasheedii xaal uu yahay qaala wuxuu yihi nabi muuse atastabdiluuna qowmkeygiioo ma bedel qaadanaysaan alladii midkii miyaad bedel qaadanaysaan huwa isaga ma waxaad bedel qaadanaysaan dheh alladii midkii huwa isagaba adnaa liidnaanta badnaa miyaad biladii kii ku bedelanaysaan huwa isagaba khayrun khayrka badnaa ihbituu hoobta marka waxaa lagu yiri marka waqiila lahum waxaa lagu yiri maadaama malabkii iyo yacni shimbirihii digaaggii ay iska diideen basal iyo wax yacni tooni waxaan qiimo lahayn ay weydiisteen bal waxaa la yidhi waqiila lahum waxaa lagu yidhi ihbituu hoobtoo dega yacni masr xaggeed uu hoobtoo halkaas aada fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum wax alla waxaad weydiisateen aa idiin sugnaadayo misran magaalo oo magaalooyinka ka mid ah halkaas aada. ilahi wuxuu yihi waduribat waxaa la yeelay calayhim reer bani israa'iil dushoodii addillatu dulli ayaa la yeelay iyo walmaskanatu miskiinnimo wabaa-uu waxay la laabteen reer bani israa'iil biqadabin caro ayay la laabteen caradaasoo min allah alla xaggii ka ahaatay daalika arrinkaas lasoo sheego oo min adillati waalmaskanati wa baw-i lghadab yacni arrinkaas waa in caro ilaahay ay la laabteen maskiinnimo iyo dullina dushooda la yeelay thaabitun wuu sugnaaday usoo qadaro biannahum bisababi annahum iyaga kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwii kufrinaayo biaayaati illah ilaahay aayadii kuwii kufrinaya inay ahaadeen sidaas sababkeed ayuu arrinkaas ku sugnaaday wayaqtuluuna yacni kuwa dilan ay ahaan jireen annabiyiina nebiyaalka bigayri ilxaqi xaq la-aan xaalay ku sugan yihiin ayay dilayeen daalika arrinkaas lasoo sheegay oo ah min alkufri gaalnimada iyo wa qatli nabiyiin iyo nebiyaalkii dilkoodii thaabitun wuu sugnaaday bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintoodii ama caasinimadoodii sababkeed ayuu ku sugnaaday iyo wa kaanuu wa kownihim aanshay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudbaayo. ilaahi subxaanah watacaala wuxuu nooga warramaa qisadii reer banu israa'iil aan ku jirnay madax adeegoodii iyo dhibkoodii iyo ilaahi subxaanahu watacaala nicmadu u galay ayuu nooga warramay. ilaahi subxaanahu watacaala nicmadiis u galay way fara badnayd. waxaa ka mid ah xilliga tihii ay ku jireen iska dawareegii ilaahi subxaanahu watacaala dushoodii qoraxduu ka ilaaliyey daruur ayuu istaajiyey daruurtaasoo iyaga harinayso qoraxda ka ilaalinayso. wuxuu kaloo ilaahi subxaanahu watacaala cirka kaga soo dejiyey yacni malab ama xabag cireyd oo geedaha iyo dhagxaanta loo saarayay. sidoo kale shimbiro buurbuuran ay iska cunayaanna ilaahi subxaana watacaala u soo dejiyey. waa cunto wanaagsan oo naafic ah oo bogaadsin leh yacni way garan waayeen markaasi waxay yidhahdeen annaga ma rabna basal iyo waxaan rabnaa toon iyo bagel iyo digir iyo waxyaaba noocaasoo qiimo badan aan lahayn ayay doortay. ilan qofka waxa waaye bini aadamka badanaa nicmadii ilaahay ma ka shukriya. reer bani israa'iilna waxay dad aad u xadgudub badan ahaayeen. ilaahay nicmadaasuu xasuusinaa marka
ilahi wuxuu yidhi waid qultum wadkuruu soo qadaro ficil oo idta ku tacalluji wadkuruu xusuusta reer nebi yacquub caruurtiisiiyo id waqti xusuusta qultum aad tiraahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira ku sabri mayno ku adkaysan mayno calaa طacaamin cunto korkeed cuntadaasoo waaxidin keligid yani yani salwihii iyo manigii yani hal cuntay ka soo qaada hal cunto maalin kasto malab iyo yani iyo hilib oo digaag ah hashaas cunto keliya aniga ma ku sabri karno fadcu lanaa rabbaka rabbigaa noo tuug xitaa adabdarada fiiri fadcu lanaa rabbana dhihi maayan rabbigeen noo tuug saas waa sida wanaagsan rabbigaa tuug yani isagay ku riixayan yani rabbigeen aa laga rebi sooma war adig rabbigaa noo tuugay yidhaahdeen yuqrij lanaa hanoo soo bixiye mima shay wax kamid oo tunbitu lardu arlada ay soo dhalinayso arlada waxay soo dhalinayso dhir ah min baqlihaa begelkeed xaaluya begel xagga luqada carbeed sideeda yani begel waxaa la yidhaahdaa dhir kastoo cagaaran waxaa la yidhahdaa begelaa la yidhaahdaa xagga luqada carbeed baqal waxaa kaloo la yidhaahdaa midaan cagaaran oo ansalaatadu eg ansalaatadu waa ka yara adag tahay midaasna waa la yidhaahdaa marka min baqliha begelkeedii ama qudaarteeda cagaaran xaal uu yahay waxaas arlada ay soo dhalinayso wa qithaa'iha qajaarkeed qajaar ma taqaana baalkan qajaar la yidhaahdo waa baal iska macruufa geedkaasi qajaara la yidhahdaa markuu weynaado oo bislaadana batiiqa noqdo wa qithaa'iha qajaarkeedii xaal uu yahay waxaas arlada ay soo dhalinayso wa fuumiha toonteeda xaal uu yahay fuum ereygaas fuumaha yani culummada way isku khilaafeen yani oo salafka saxaabadii iyo cabdullahi ibn mascuud waxaa laga wariyay inuu yidhi u aqriyay qir wafuumiha ay wathuumiha yani toonaa loola jeedaa fa'da booskeedii tha ayuu aqriyay wathuumiha toonteedaa loola jeedaa yani toonteeda sidoo kale waxaa kaloo saas ku fasiray taabiciga la yihahdo mujaahid ibnu jabrin wuxuu ku fasiray wafuumiha yani toon oo ku fasiray sidoo kale riwaayad kale oo cabdullahi ibnu cabaas wuxuu ku fasiray yani toon oo ku fasiray luqo kale rag kale yidhaahdana way jiraan culummada ah wafuumiya waxaa la yidhaahdaa yani qubuska ama burka waxay yidhahdaan carabta yidhaahdeen luqadii hore fawimuu lanaa yani qubus noo sameeya bimacnaa ikhtabisu yani muufo ama qubus ama bur noo sameeya waayahay sidaas marka waxaa dhesa wafuumiha toonteeda ama burkeeda xaal uu yahay wax arada soo dhalinayso waa cadasiha digirteeda xaal uu yahay cadas waa iska caan waa digirtan cadaska la yihahdo gudgududan oo jaalada oo baasha misirta oo la kala dhambalay cadas caan wa hadda dadka dhulka carbeed jooga si fiican u yaqaanin soomaaliya xitaa waa laga hela digir iyadoo cadas iyadoo gasca ku jirta carwooyinka lagu gadaa iyo meelaha waa cadasaa digirteedii waa nooc digirta kamid waa cadaska waa cadasaa digirteeda xaalu yahay maagaas ay soo dhalinayso oo basaliya basasheeda xaalu yahay basasha waa iska macruuf marka waxay dalbadeen bagel iyo qajaar iyo toon iyo digir iyo basal shantaas shay dalbadeen qaala wuxuu yidhi nabi muuse calayhi salaam atastabdiluun qowmkayga ma waxaad bedel qaadanaysaan alladii midkii huwa isagaba adnaa liidnaanta badnaa miyaad biladii kii ku bedelanaysaan ma kii liidnaanta badnaa miyaad bedelanaysaan biladii kii miyaad ku bedelanaysaan huwa isaga kayrun kayrka badnaa waa yacni shayga laga tegaayo ba'da la geliya yacni shaygii kayrka badnaa malabkii iyo xabag cireydkii intaad yacni iska tuurtaan xabag cireydkii iyo aad diidaan iyo malabkii iyo hilibkii miyaad basal iyo toon ka dooranaysaan ibiduu marka hobta misran culamada laba macno ku fasiran misran yani misran min yani misran min alamsaar magaalooyinka un kamid ah aada culamada qaarna waxay yidhaahdeen misritan waa magaalada misr caadiya loola jeedaa magaalada masar meesha aada culamada qaarna sidaasay ku fasireen laakiin ibnu cabaas wuxuu ku fasiraa magaalo un magaalooyin kamid ah un aada magaaladaas uu hoobta fa ina lakum waxaa idiin sugnaado ad iska leedihin maa sa'altum waxaad su-aalateen waxaad weydiisteen basasha iyo toonta iyo digirtii aad leedihiin ilahi wuxuu yidhi waduribat waxaa la yeelay calayhim calaa bani israa'iil caruurtii nebi yacquub dushoodii adillatu dulli iyo walmaskanatu miskiinnimaa la yeelay wabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin caradaasu min allahi xag alla ka ahaatay dulli iyo miskiinnimo iyo caro marka weligood saasay u dulaysayin marna weligood islaamka saasaa loo dulay marba kii imaada gaal iyo muslim waa la baabi'iyaa haddana 100 sano kadib markay soo kabsadaan 100 sano kadib dana ninaa soo baxaayo
dadaas soo baxo ama gaal iyo muslim ilahay ciidamiisu waa badin markaasaa la laaya yuhuud. hadda 100 sano ka hor ama 90 sano ka hor ninka la yidhahdo Hitler aa usoo baxay dhammaan ka waa baabash ilaa foorno ku shubay adduunka ku kala firdhi way kala yaacay ayadoo adduunka ku kala firdhisan yaa reer Yurub isku soo aruuray Mareykanka meeshan hadda ay degan yihiin Tel Aviv iyo dhulkaan hadda xoog lagu soo dejiyay halkaas soo dejiyay. haddana insha Allah taala dhowr sano kadib dad baabi'iyo haddana soo baxay dad baabi'iyo oo ilaahay junuudiisa ay soo bixi doono markaas yuhuudda baabi'inayaan ilaahay ballanqaadkiisana waa dhab. ذلك أرجع الله صار شيء من الذلة والمسكنة وبوء الغضب يعني عرقني الله نقدين دل يمسكين من الدش على جساري ثابت وسقنا هذا بأنهم بسوء أنهم إيجا كانوا إني أهنجرين يكسقنا هذا يكفرون وكوكفريو بآيات الإله أيديس إلى أيديس وكوكفري أهنجرين ساسي مرك أين تاسع أصاب أيد مرك ويقتلون كوا لا يعني أهينا سبب أي واحد النبيين نبيالك يعني نبيالك إلى ينجرين قال لماذا آيات إلى يكو كفرين جرين لا بد أسبب أيد قال لماذا يكو كفرين إلى أيديسي يدلك نبيالك يدلين لا بد أسبب أيد إن دل مسكين نما يو على إلى يدش لقى سعر إلى النقدان بغير الحق حق الآن حالي يكو سجين أي نبيالك يدلين حق الآن يكو دلين نبيالك النبي إن لديله حق ما النبي إن لا رع وركيس لا يلا حق ذلك أرجع صلى الله عليه وسلم من الكفر قال نمضي إيه وقتل النبيين يعني النبيالك إن لدلاي ثابت وسقنات بما عصوا ما لا مزدري بسبب عصيانهم يهودا عاسين تود إلهي يكو عاسين سبب كده أيوكو سقنات إيه وكون عن شيء هذين يعتدون كو واحد قدبو أيوكو سقنات. طيب مركالك أسكجو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.